وين سلام يا إخواني وأخواتي. دنتي موجة مردوجة horteed ayuu dhammaadaa. maraduug ah ama maraduugeed horteed ayuu dhammaadaa. labadaba waa lagu fasiri karaa. macnaha maro lagu duugay qof dabcan dee ma dhow aboorkaa cunayo waa la kala jarjaraya. maraduuga oo dhammaadana dabcan waa iska dhammaata. annaga haddaan Soomaali nahay waxaan noqonnay dad dantooda moog ayaan nahay. haddee sida aad adinkuba ay awoowayaasheen ku mahmaheen, maraduuga horteed ayuu dhammaadaa. qofku hadduu dantiisa moog yahay, waa taas waan dhammaanay. meesha aan maanta naalno iyo sidaanu egnahay iyo dalkanagii meesha uu joogo waad arkaysaan. sidaa darteed si aad maaragtay jiilkanaga dambe iyo carruurtannada iyo mustaqbalkanaga aan u badbaadino, waa inaan dadkanaga aan hagaajinaa oo carruurtannada aan maaragtay mustaqbal u yeelnaa oo wax wanaagsan aan barnaa oo afkooda aan barnaa. waxaad arkaysaa intaas oo dad oo maanta xataa kuwii waddankii jooga qaarkood iyo kuwii dabadahaas aaday ama ilmihii ku dhashay ama iyagoo yar tegey ama dadka qaarkood oo xataa afkii ka dhumay. qof mar haddii afku ka dhumo wax walba waa ka dhumaya. dhaqankii waa ka dhumaa, diintii aa ka dhume, xiriirkii oo dhulkii iyo dadkii lalahayaa ka dhumaa, dhaqankii soomaalinimadaa ka dhumaya. dadka Soomaalidaa wax lama qaybsan karo. adduunyadu saas maahan. dadka waxaa jira sida hadda waddamo badan sida Hindida, Lubnaanta, waxaa jira waddamo badan oo adduunyadan waqti badan macnaha qurbo joog ah. ka'ab iyo 5 ilaa 10 oday dhaqankoodii iyo maaragtay afkoodii kama aysan tegin. marka afku waa muhiim. afku wuxuu kugu ilaalinayaa diinta, dhaqanka, wuxuu kugu xiriirinayaa dadkaagii inaad dhegaysatid. xataa dadku waxaad arkaysaa afkii qaladaa loo qorayaa. afkiyaa naga dhumay, hiddihiyaa naga dhumay, dhaqankiyaa naga dhumay, akhlaaqdiyaa naga dhuntay, wax walbaa naga dhumay. marka dantannadu waxay ku jirtaa annagoo diintannada iyo dhaqankanaga iyo afkanaga iyo dhulkanaga iyo cirdiganaga ilaalsanna. waa idin salaam.